الله mahadle oo maanta suurtageliyay inaan shirkan sanadlaha ah ee garsoorka Soomaaliya halkan isugu imaano oo qaarkood in badan ay ka yimaadeen dawlad goboleedyada meel aad iyo aad u fog anigana sharaf ayay tahay inaan kala soo qayb galo munaasabadan sanadlaha ah waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo howlwadeennada sida wanaagsan ee u soo qaban qaabiyeen xafladan qiimaha badan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa muhiimadda ay leedahay maanta shirkan muhiimadda ay leedahay waxa weeye waxa ugu horeeya qiimeyn in la isqiimeeyo inaad isqiimeysaan inaad kala aqoon kororsataan inaad dib u milicsataan sanadihii la soo dhaafay waxa khaldamay sidii lagu sixi lahaa iyo sanadaha soo socda hawsha sidii ahaan lahayd iyo inaad kala faa'iideystaan oo ay idin noqoto garsoorayaal waxa laga yaabaa dhalinyaraha inay halkan joogaan cusub inay u noqoto aqoon kororsi aad iyo aad yaan runtii u soo dhaweynayaa waxaan aamsanahay inay meeshaan natiijo wanaagsan ka soo bixi doonto insha Allah oo dadka garsoorayaasha nooga yimid dawlad goboleedyadu ay la noqon doonaan khibrad badan iyo macluumaad badan inkastoo aan jeclaa in kaysas sax ah laga wada hadlo iyo sidii loo xaliyay kaysaskaas si ay u noqoto wax laga bartay taas waa qiimaynta idinka rabayna qiimeysaan waa qiimaynta idinka rabayna qiimeysaan waxa idin qabsoomay iyo waxaan idin qabsoomin dadweynaha Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka naftigooda doonaya inay Soomaaliya wax ku darsadaan iyagu naftigooda waa qiimeynayaan garsoorka iyo maxkamadaheena waa qiimeynayaan waxay qiimeynayaan sharciyadeena sidaan ugu adagna sharciga noo qoran inaan raacno sharciga inuu yahay kii sareeyay oo san ahayn qofka inuu sharcigu ka sareeyo sharciga sidaan u interpret gareyno saan u qeexno sidaan ugu apply gareyno xaaladda markaas jirta maxkamadaheenu sidee u shaqeeyaan garsoorayaasheenu sidee u shaqeeyaan sidee dacwadaha u galaan iyo institutionka ama hay'adaha noo dhisan sidee u shaqeeyaan sida dacwadaha loo qabto oo de nidaamsan waa la qiimeen caalamka raba inay halkan yimaadaan iyo dadka Soomaaliyeed marka ay runtii ka walacsan yihiin arrimaha maxkamadaha taas ka mid ah qiimeynteeda waxa kale oo la qiimeenayaa saan sheegay hay'adaha booliiska oo iyagana qayb ka ah maxkamadaha iyo cadaaladda qayb ka ah maxaa yeelay iyaga ay ka soo bilaabataa dacwada iyaga ka soo bilaabataa CID-da baarta CID-da waxay u geeyaan maxaan ku raahdaa xeraaliyahana dacwadii waa adkeeyaa ama wuxuu ogaadaa meesha inaysan dacwo jirin intaasoo idil iyada naftigeeda waxaa loo baahan yahay inay leeyihiin capacity aqoonteeda inay leeyihiin daacadnimadeedii la baro inay daacad ka noqdaan shaqada ay hayaan oo aysan dacwada maleegin qof khaldan inaysan dacwadiisa siinin qof saxsanna inaysan xaqirin waa waxyaabaha nalagu qiimeenayo waxaana lagu qiimeenayaa laba qof oo heshiis galay sidee loo kala saaraa qofka saxsan iyo qofka khaldan sidee loo kala saaraa waxaa jira wax la yiraahdo business contract jira oo laga yaabo dad shisheeya inay halkan yimaadaan oo laga yaabo dad Soomaali ah inay halkan maal gashadaan meeshii haduusan jirin sharci marka iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci qoran oo la qaadanayo oo la isticmaalayo uusan jirin garsoore si sax u qaadaya hadii qof meeshan imaanaya oo heshiis ku galaya ma jiraayo oo wuxuu u fahmayaa meeshani inaysan ahayn dalkan isu ahayn sharci adag oo runtii ay dadku ku kala dambeeyaan ama ay ka jirto foodo ay ka jirto taasna runtii waa wax sumcadeena iyo sharafkeena dawlad ahaan iyo dad ahaanba aan u wanaagsanayn haddaba waxaan hubaa qof walba halkan yimid inuu ka bartay wax uu ka bartay munaasabadan uu wax ka bartay oo anigu maanta aan xiraayo in khibrada aad ka hesheen wixii hore u dhacay oo aan hubo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xiriiryaha presentationkii macluumaadka idin siiyeen inuu idin siinayo meesha loo socdo naftigeeda inaad arkaysaan haddaba aniga aan iska soo qaado khibradii aan ka helay 2 sano intii la doortay sidaad ogtihiin
shiikhan uu sheegay khayr Allah siiyo in ay jirto rajo xumo badan ee dhanka maxkamadaha ah in dacwooyin iyo cabasho badan laga qabay garsoorayaasha oo markaan midba hore laga yiri waa in la bedelaa garsoorayaasha maxaa yeelay meeshani ما سنتين oo lagu eedeynayay ama cabashooyin badan ay ka imaanayeen dhanka garsoorayaasha oo lagu eedeynayay inaysan caadil ahayn inaysan xaqa aysan dadka kala siin waxaan ku khasbanaaday markaani garsoorayaasha naftigooda inaan cadaalad siino inay tahay waxaan ama eedeyntaan inay tahay wax dhab ah ama inay tahay dad wax laga xukumay oo xukunkaasi aan jeclaysan eedeyntooda si aan taas ku ogaano waxaan baarnay xabsiyada dad ku jira marka dadka xabsiyada ku jira waxaan u saarnay guddi soo baara dadka xaqdarrada ku xiran guddigii aan saaray waxay soo saareen oo ay soo ogaadeen 120 ku xirnaa xaqdarro oo qaarkood $50 iyo $100 ay u xirnaayeen 6 sano iyo 5 sano waxaa xukumay garsoore ma garanayno ujeedada iyo dantu ka lahaa qofkaas miskiinka ah oo laga yaabo $50 iyo $60 si uun in loogu eedeeyay inuu ku xirnaado 4 sano oo noloshiisii qayb ka mid ah maxaan ku raahdaa halkaas ay uga lunto ilaahay waa nagu guuleeyay 120 yaa halkaas aan ka soo deennay oo aan aaminsanayn inay ahaayeen dad cadaalad aan loo samaynin intaas kuma inaan kaan waxaan sameynay guddiyo kale oo aan u dirnay dibadda sidaad ogtihiin 200 in laga keenay Itoobiya oo muddo isaga xirnaa halkaas oo aan qaarkood maxkamadda la saarin kuwa badan India 100 kor u dhaafay 120 in ahaayeen baa qiyaasaya labana meesha ay ku dhimatay Allah ha u naxariistee inaan meesha ka keenay labadaas dhimatayna waxay u dhinteen TB shay u dhinteen konton kalena TB shay qabeen oo hadday ku sii jir lahaayeen waxa halis ahaan lahaa inay u dhintaan waxaan ka keenay maxaabiis si maxaan ku raahdaa aan xaq ahayn ugu xirnaa Tanzania Liibiya iyo Uganda taasna waxay ka turjumaysaa ballantii aan qaaday oo ahaa inaan siinayo muhiimadda koowaad hawlaha ama arrimaha cadaaladda waana ku guulaysanay dadkii ka shaqeeyay xiriirlayaha ka mid ahaa iyo looyaro kale oo wanaagsan ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo intaas kuma inaan ekaan baaritaankeeni waxaa noo soo baxday in garsoorka uu u baahan yahay isbedel inuu u baahan yahay isbedelkaas way fiicnaan lahayd haddii golihii adeega garsoorka uu noo dhisnaan lahaa laakiin horay ayaa iyaga looga saaray meesha waxaan ku khasbanaaday marka inaan raadiyo maxaan ku idhahdaa garsoorayaasha ugu fiican uu ugu horeeyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo 9 garsoore oo la shaqeysa iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo gudoomiyihii Racfaanka taas waxay keentay rajadii ummadda ay ka qabeen cadaaladda iyo maxkamadaha inay isbedel ku dhacay ee kalsoonidii soo noqonayso ogaada haddee wax dhammaystiran ma laha ilaahay un baa dhammaystiran waxaa loo baahan yahay in loo sii daadego oo la gaaro garsoorayaasha degmooyinka in la gaaro garsooraha marka waxa laga rabo shiikha sheega oo si fiican u bayaaniyay oo runtii suu noo waday aakhirana geeyay laakiin waxaan rabaa xogaa inaan adduunka ka hadlo aniga aakhira isaga askale oo ka hadla anna xoogaa waa inaan ka hadlo in halkan la shaqaysto wixii aan shaqaysanaan aakhira la tegaynaa garsooraha waxa laga rabaa garsoore marka la xulaayo waa qofka dadka ugu wanaagsan horta ilaahay og qalbigiisa
ilaaha og siduu u fakaro siduu u soo koray aqoontiisa laakiin annagu sidaan u aragno wuxuu noogu qoran yahay qofka ummadda ugu fiican qofka kala saara waxa wanaagsan iyo waxa xun waxa khaladan iyo waxa maxaa ku radaa waxa wanaagsan qofka kala saara macnaheedu waxay tahay qofkaasi naftiisu saacidaya maxaa yeelay dawladdu u shaqeeyo wuxuu rabaa inay jirto oo si ahaado garsoorena kuma ahaan karo hadduu ka shaqeeyo cadaalad darro oo xilka waa laga qaadaya tii aakhirana waa ku harsanta meesha adduunkan ka soo gelinayo waxaa laga rabaa garsoorahaas shaqo ma aha waxa uu hayo waa xil sharafeed weeye shaqo ma aha qofkii u soo shaqo taga oo u haysta inuu maalin soo goosanayo oo joorniyeeri u yahay ma aha joorniyeeri qofkaas wuxuu mas'uul ka yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan magaceedu mas'uul ka yahay waxa uu sameeyo oo khaldan ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo taabanaysa hadduu wax wanaagsan ka shaqeeyana caalamka oo dhan halkaan cadaalad soo doonayaan marka halkays uu haleeyo yaa sharafka Soomaaliya haleenayo sumcaddii garsoorka oo dhan haleenaya maxkamadaha sumcaddii wasaaradda oo dhan cadaalad haleenaya isaga iyo maxaan ku raahdaa hay'ad ka shaqeeyo shacabka kala fogeynaya markaan leeyahay shacabka kala fogeynaya hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u heshiisiin aan ku jirnaa waxaad gashaa dhulalkaas waxaa laga yaabaa dadkii lahaa waa hore inay ka tageen ay u soo noqdeen si ay qayb uga noqdaan dhismaha dalkooda marka haddii garsoorkaas uu soo dhaweeyo oo uu cadaalad ka shaqeeyo oo qofka xaqiis uu siiyo wuxuu soo dhaweeyay dib u heshiisiinta iyo iscafiska uu sheekha noo sheegay wuu soo dhaweeyay macnaheedu wuxuu ka shaqeeyaa inuu adduunka si fiican ugu noolaado haddii garsooruhu uu xalleeyo marka waa meeshii ugu dambaysa oo ay cadaaladda ku hakato way wax wanaagsanaan kara ma laha marka maxaa yeelay waa meeshii ugu dambaysay oo dadku aadayeen haddii meeshii ugu dambaysay aysan khayr lahayn marka waxaa khasaba ammaanka inuu hallaabo oo garsoorahaas laga yaabo in la dilo waa sax way maxaa yeelay ciidanka ma shaqeyn karo hadduu og yahay ciidanku wixii la rabo ma qaban karo hadduu og yahay inuu cadaalad iibsan karo kaliya maha ciidanka systemka kale oo dawliga oo dhan iyada nafteeda ma shaqeynayso hadduu og yahay qofka hadduu xumaato sameeyo inaan laga jaaseynayn garsooruhu marka ama dawladdu dhisi ama dawladdu duminaya marka waa meesha ugu dambaysa oo qofka Soomaaliga ah ama qofka muwaadinka ah uu ka raadinayo gargaar uu ka raadinayo haddii marka qofkaasi ay tahay qof dumar ah oo hooyo ah oo maxaan ku yiraahdaa u dooratay cadaalad u dooratay oo cadaaladii ay ka soo weyday waxa weeye inkaarteeda iyo waxa ay sameynayso waa meesha ugu hooseysa ogaada weeye waxa cuqubadana haysa Soomaaliya haysa qayb ka tahay qof dhibaataysan oo loo gargaari waayo qof dhibaataysan oo loo naxariisan waayo meesha ugu dambaysa marka oo ummaddu ay ku hakanayso waa xafiisyadiina marka haddii aad rabtaan dawlad u shaqaysaan naga hagaajiya cadaalad iyo garsoorka haddaad doonaysaan inaysan dawladda hana qaadin oo aysan dawladda shaqaynin hadda waa khasab nin shaqadiisa ku cayaaraata annagana waxaan ka shaqaynaynaa intaadan wax walba ku cayaarin inaan shaqada kaa fariisino marka shaqada lagaa fariisiyo hadda waxaa noqotay nin gurigiisii iyo reerkiisii maxaan ku raahdaa mas'uul ka noqon waaye tii aakhirana waa kuu dambaysaa iyo cadaabka ilaahayna waa kuu dambeeyaa marka waxaan idinka codsanaynaa garsoorayaasha iyo maxkamadahu inay u fahmaan hawshay hayaan inay tahay shaqo inaysan ahayn ay subaxdii u kala lahaanaysan ahayn inay tahay subaxdii wax u kala lahayo inay tahay inuu ajar zaayidsado ama inuu dambi kororsado waa intaas waana shaqada ugu fiican waana shaqada ugu xun ogaada waa shaqada ugu fiican oo markaa indhaha kala furto waxaad hor fadhidaa laba qof qofna daalin yahay qofna maskiin yahay choice-ku marka waa adiga marka haddii aad tahay nin ilaahay ka baqaayo oo aakhiradiisa shaqaysanaya shaqadiisana ilaashanaya
wuxuu caawinayaa qofka dhibaataysan waa ajar ku qoran marka shaqo ka fiican ma aqaano oo qof bini aadam subaxdii u kalaho qof subaxdii ajar farta uu qaado iyo qowlka uu sameeyo uu ajar ka faa'iideysanayo ajar ka korsanayo shaqo ka fiican ma aqaan meelay taalo annagana waxaan ku dadaalinaa insha Allah in aan baahidiina meel saarno oo aan idin siino mushaharaad idin ku filan oo aydan ka raadin wax kale dadka idin hor imaanaya oo cadaalad idin ka soo doontay waa ku mahadsantihiin waan idinkaga mahadcelinayaa duruufaha adaga ku soo shaqayseen waa garan karaa xanuunka iyo dhibaatada maxaan ku raahdaa ee leedahay qofka hadduu xuquuqdiisa helin insha Allah waa ku dadaalaynaa ugu dambeyn waxa weeye cadaaladdu ma dhamaystirna ilaa guddiga adeega garsoorka ah la dhiso guddiga adeega garsoorka ahna insha Allah waxaan qorsheenaynaa sanadkan inaan horgeeno golaha shacabka inaan horgeeno hadduu eeba yiraahdo dadkaasna ay noqdaan dad wanaagsan oo iyagana naftigooda ilaahay ka baqaya oo wadaniyad fiican oo ka shaqeynaya sharafka iyo magaca dalkooda iyo dadkooda intaas hadalkay ku eegyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh